سلطان عبد الوهاب عيقة أحمد وياي سلطان كجود مكاهل ولا الله سلطان عبد الوهاب وإيد ليه أنا قاعد دورني سلطان عبد الوهاب عيقة أحمد وسلطان مكاهل جود oo ay ninkii ay doorteen halkaa ka cadeeyeen oo shantii makaahil ba u dhantahay سلطان محمد سلطان سليمان وإلك يجي لكن waxaan cadeynayna inuu yahay sultaankii reer nuur uu yahay makaahil wuxuu doortay Cabdiwahaab Cige Soomaalo dhanba ka soo qayb gashay suldaankan makaahil baa u dhammaaday oo horaa loo doortay waxaan beelaha makaahil iyo beelaha samaroon iyo dhammaan ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed baa u cadeynaya inuu Cabdiwahaab Cige Axmed yahay suldaanka guud ee beelaha makaahil salaadiinta guud ee beelaha makaahil ayaa maanta waxa ay sheegeen inuu yahay suldaanka guud ee beelaha makaahil Suldaan Cabdiwahaab Cige Axmed waa kuwan iyagoo hadalladaasi iyo hadallo kale oranaya iyagoo maanta halkan aan joogno bishii 8aadna 3 tahay waxaan halkan ka sheegaynaa nin mormo iyo nin hadeeraado muraad kala leh inaanan maanta ana waxba hadeerada aanay ka danahayn haddii dadkana waxa loo doortaa darihiisa loo doortaa shabcigu isaga doorta qofka doorta iyo asaka ka galiya iyo waxaas ma jiraan Suldaan Cabdiwahaab uu makaahil doortay beelahaan uu u dhayahay cid ka maqan male Abdallah jooga Elila jooga hadira Jibriil Musa jooga cid kasta joogta Waar Abdallah joogta shantii adeer reer nuur baa jooga aadi yooris baa jooga makay dheeraa jooga baash xasan baa joogta haddii la dhado waxaan leenahay ciyaa jooga ceeli baa jooga wariyaa ka maqan waxaan leenahay annagu waxaan u dooranay Suldaan Cabdiwahaab Cige Axmed inuu suldaanka makaahil yahay muronna ka joogin anaguna waanu dooranay waxa ka horeeyo taa ka horeeyo in barigii hore la dooranayay madaxweyne ku xigeenka iyo cirre la dooranayay lafteeda aasaaskaasi dhacay cid ka warhaysay cid ka warhaynba laakiin markii dambe ilaa waqti marka laba sanadood naga xigto iyo doorashadu dhacday lagu dhawaaqay la caleemo saaray waa suldaankii makaahil Cabdiwahaab Cige Axmed sara kacbaan leenahay sara joogso dadku ha arko ka muuqo murkadhe waxaan leenahay ha ogaadaan gobolladu ha ogaadaan degmooyinku ha ogaadaan caalamku ha ogaado carreedeg iyo carra mawlaba waanu sheegaynaa cid kasta oo haddii la ahdo codkeedagu gaadhay Suldaan Cabdiwahaab Cige Axmed waa suldaanka makaahil guud waa leenahay guuleyso sidaasaan leenahay ilaahay baa haddii la wardo jecel anagu halkaasaan dhignay nin doodiyo nin diidaba halkaasaan dhignay saaka waa wanqashii saddexaad malaha iyo tii afraad Suldaan Cabdiwahaab waxaan dooranay 2023 makaahil baan u dooranay reerumaana dooran sidaa darteed cidii iska hadlaysa anagu kuma haysano ee iska hadasha meelaha ka hadlaysa midna hal la ogaado ninka meelaha ka hadlay makaahil oo aniga dirqi aniga igu dooran cidna naga heli mayso Suldaan Cabdiwahaab uu eed leeyahay annaga dooranay annaga waardiye ka annaga gacantiisa midiga maantana waxa halkan keenay warta ma garanaynaba makaahil toob uu ka yimiday Jabuuti uu ka yimiday Hargeysa uu ka yimiday Burco uu ka yimiday makaahil halkaas isku bido Cabdiwahaab waxa la saaray anagu kaasaan ognahay anagu kaasaan u dooranay cidda meelaha ma tahadlaysay barnaamijka makaahil iskeen barnaamijka makaahil iskeen anagu waxaan waa Suldaan Cabdiwahaab Allah noo barakeeyo waka dadkeegu waka Allah noo barakeeyo ay doorteen beelaha makaahil ay doorteen tu maanta la dooranayo oo la leeyahay halkan ayuu joogaa maaha horaan u dooranay Suldaan Cabdiwahaab Axmed Cige Axmed
horaanu doorannay sidaa darteed ninka guryaha dibadooda ka hadlaya aan soo shaabaxayno beriye saan dambaba waa lagu taagaya soo bax oo isa soo cadee hadda waana iscadaynayn dee aqalada hoostooda ka hees sidaa darteed kamana noqonayno tu aan ka noqon meelaan ka noqon ma joogna makaahil weynaadee doortay dhammaan dadka la yidhaha makaahiilka ee bad ilaa oogo jijiye wuxuu jiraa 20 kilomitir baddana halkaasu ka gala oo reerkii ugu tuka weynaa Gadaburso dhan weeye makaahil wuxuu doortay dhowr sano ka horow Cabdiwahaab Cige Soomaalo dhan ba ka soo qayb gashay Isaaq ba ka soo qayb galay daarood ba ka soo qayb galay gurguraa yimid cid waliba way joogtay waa lagu dabaaldego waa lagu kala hagaagay waxa weeye maanta cid kasta oo magaca Soomaaliyeed sheegta Cabdiwahaab waxay u taqaanaan Suudaanka makaahil ba u taqaanaan makaahil weyni waxa weeye ragga ka daba hadlaya waxa weeye tol baan nahay waxaan leenahay intiinu haydin deeqdo waan idin ogol lahay walaayaha aatiin idin caaymayno idin aflagaadin mayno allah u naxariisto geesigii Suldaan Saleebaan Suldaan reer Nuur buu ahaa waan ku caqlaysan dhowr iyo 70 jir baan weligii ma maqal Suldaan makaahil lagu sheegin waxa leenahay allah u naxariisto Fariid buu ahaa nin rag uu ahaa waxa leenakiisana waxa leenahay war koofiyadii aabaha iska gasho rabshada iska daa jilib makaahilka ka tasawiyay reer Nuur makaahil weynaa doortay adda ka mid baa tahay waa walaalka sacabka u garaac soo dhawee calool xumada laga ilaaliyo Cabdiwahaab maanta lama dooran horaanu dooran kuwani meesha ma xagga dambe ka gogoxayay goobjoog ma ahaayeen baaliti raggii doortay ba kamid ahay qaarkood makaahil baa doortay waxbuu baaray wili bannaan buu Cabdiwahaab u doortay oo makaahil leeyahay oo ka bannaan ayaa Cabdiwahaab loo doortay suldaankii makaahil weeyar Cabdiwahaab Cige Axmed makaahil baa doortay anigu waxaan ahay nin reer Nuur ah oo waliba reer Maxamuud Nuur ah makaahil ayaa Cabdiwahaab Cige Axmed doortay 3 sano ka hor baana loo doortay waxaana wanaagsan dhaqanka iyo siyaasadda in la kala duwo dhaqan baa doorta oo reeraa doorta dawladduna wasiiraday doorataa ee muxuu ahaa suldaanku wasiir maaha ay dawladdu dooranaysaa markaa waxaan leeyahay ayaanay ku mayrmin dawladdu dhaqankee siyaasaddeeda ha ku egaato makaahilna waan u mahadnaqayaa inayna kala saareen labada nin ee labaduba ilmaadeeradayee ma garanaysaa suldaannimada isku haysta inayna kala saareen maanta oy garoonkaa cad nagu kala saareen oo ay ninkii ay doorteen halkaa ka caddeeyeen oo 5tii makaahilba u dhan tahay ninka waxaan ilaahay doonayaa waa isagu isdhibayaa dadkana wuu dhibayaa waana madnaan sarakace ninka waxaan ilaahay doonayaa Suldaan Saleebaan maalintii la doortay laankuusalkii u horeeyey waxa bixiyey kuwana uu haystaa bixiye kaa uu haystaa bixiye laankuusalkii u horeeyey faraskii bullaal u ahaa wuu ka qiimo badnaa laankuusal wuu ka qiimo badnaa gorayla ayaa la oran jiray waa la wada garanayaa maanta isna inankanina halkii unbuu noola mid yahay halkii aabbihii unbuu maanta noola mid yaho booska uu nagu leeyahay diyaar baanu u nahay booska uu nagu leeyahay diyaar baanu nahay boos aanu ahayna isagay ceeb ku tahay inuu xagxagto suldaankan makaahil baa u dhammaaday oo horaa loo doortay Cabdiwahaab waxa keenay waqtiga haddaan u sheegaynaa iyo danta iyo aqoon iyo xul
ما هين حل ما هين دحلنا ما هين halka waxaan ka cadeynaya inay saldanada makaahil ayna dhaxal ahayn waxaan beelaha makaahil iyo beelaha samaroon iyo dhammaan ummadda Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed baa u cadeynaya inuu Cabdi Wahaab Ciga Axmed yahay suldaanka guud ee beelaha makaahil dhanka kale waxa hadalka soo gabagabeeyay suldaanka guud ee beelaha Jibriil Yoonis Suldaan Abi Bakar Cilmi Wabar halka waxaan iskugu imanay sultaan Cabdi Wahaab Ciga Axmed uu yahay suldaanka guud ee makaahil walaalahayo Soomaalidu saa ogaato makaahil sidaa ogaato sabaroon sidaa ogaato Soomaali oo dhan maanta ha ogaato muslimkuna ha ogaadaan siyaasadda iyo ragga nagu matalaan walaalahayo madaxda imka ugu sareysa waad mahadsantihiin annaga ina dooranay laakiin naguma dooranin inaan dhaqanka aad xagagtaan naga xagagtaan rag baa xiran imika odayaal baa xiran demi ma gelin waxay taageereen suldaankii makaahil suldaan Cabdi Wahaab Ciga Axmed taasaa lagu xidhay waxaan doonaynaa nimankaan in la soo daayo suldaan Maxamed suldaan Salebaan waa ilkayagii laakiin waxaan cadaynaynaa inuu yahay suldaankii reer Nuur uu yahay dhaxalna ma laha maashu waa tan la cadeeyay inaan dhaxal lahayn makaahilku سلطان مكاهل سلطان محمدنا وحنو على مسار دورنا تير النور تاساس هوشتو بدن تايبا إلا قول قتل الدوري دقال لا جرا حبهني با ماركتي دبنت كجران ضد بالله بالمهدن الله فتوبتي واحد جوجا شركة المحيابة محوها جالسة ركبة جوجا وضيال بدن با جوجا شركة ما جوين وحل دوريا إلا قشق يوم تاكم مشغول رو تان ما هي تاجل ما تبع تعصب تاجن متهول بتاجن تيل الربيع إلا قشق يوم ودكني ما ركت وحدي بكتة تاجن وحلا قبته أيام الدوريا بشارة بدأ شامع مرباهين تعيش تي في بورما